tashana hadda isugu sii tasano kuwii dhama xabis bini'aadanimada wax qabanaya aan dhahaya idinka waxaysdii idinku darayna maane waxba maaragtay hadda bilow idinkaga dhigayo say Soomaali u tiraado nin quraacdiisa heli kara ayaa qada loogu diray say Soomaali u ahayd ayagana kuwii bini'aadanimada noqday marka saas isaga dhaafnay anagana horumarkeena gaarno wax badan qabsano oo arkaysaan hadda dadka aragga sida hore maaha waa kumanaan oo wax qabsada wax bartay waxayna ku gaartay iskaashigii isqabsigii aan shalay isku tashigii ayaa lagu gaaray haddana waxaan leeyahay weli waa sii gaarayna laakiin marka la batay waa la baraka dareeyay runtii intii la yaraay waa la isku xirnaa laakiin hadda markii la batay xoogiya tafaraaruq noqday waxaad moodaa markii in goobo la galo marka waxaan leeyahay dadka baahiyaha gaar ah ha midoobeen hal far ha noqdaan si bulshadooda kale ay maaragtay isaga dhiciyaanoo waxba qabsan karna iyo dumarkiia inta dadaalay ay gaareen in qoonto loo sameeyo laakiin dadkii ay baahiyaha gaar qabay waxaad moodaa weli inay taasi aysan fahmin hadday fahmeenna in yar ay tahay marka waxaan leeyahay walaaleenna qiimaha badan sida hadda Axmed oo dadaal badan u sameeyay oo saan hawshan u haayo in qof walba ayaduna ay howl u qabato dhinaceeda si bulshadii ay wax ugu taraan insha Allah waxaan rabaa doctor inuu ku weydiiyo waxaa jira dad badan oo baahiyo gaar ah qaba oo maxaa la yiraahdaa kan jabsan inay wax qabsadaan dadkaas maxay u sheegaysaa runtii walaalkaygiiyo Ramadaan kasta markii la gaaro waxaan sameeyaa dadka aragga la waxaan dhahaa maaragtay 20 qofood aan ugu talagalay inaan wax baro bisha Ramadaan gudahood macluumaad aan ka siiyo hawsha inkastoo oo dheer tahay laakiin Ramadaan kasta wax ka kordhistaan waxay noqonaysaa wax qiimo badan marka Ramadaankii hore waxaan idin maaragtay war imaado idaacadaha ka dhahay aan barnay 2 qof bisa ka imaatay inta kale 18 waxay dhamaatay bishii ayuu wax laga faa'iideysan marka badanaa waxay aaminsan yihiin annaga wax ma qabsan karno in wax noona qabto la rabnaa hadda beri walba qofka hadduu biilku siiyo wax ku siiyo beri hadduu kaa jirto intaa aadi adiga waa meel marka gacantaada wax ku baro si beri aad u noqotid qof wax qabsan marka arrinta iqra ahaan gaar ahaan Cabdiqaadir ahaan waxaan diyaar u nahay dadka baahiyaha gaar qaba inaan wax baro gaar ahaan kuwa aragga la inaan wax baro ayaan diyaar u ahay si guud dadka baahiyaha gaar qaba gaar ahaan kuwa aragga la maadaama si gooniye isku baha aanu siinaa aad u mahadsantahay doctor Cabdiqaadir Maxamed Xaali Suusagar inaan barnaamijkan maanta kula yeelano dadkana u soo gudbiso macluumaadka ku saabsan iyo gaar ahaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba sida aad noogu warbixiso waan kaaga mahadcelinaynaa tiimka baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya waxaan leenahay maxaa la yiraahdaa indha'aantu ma ahan maxaa la yiraahdaa maskax la'aan marka inaad wax qabsataan aan ku boorinaynaa gabagabadii soo gaarnay maxaad dardaarankaada ugu dambeeyay arabna inaad loo soo jeediso walaalkay aad amaansan tahay dardaaranka ugu dambeeyo waxaan leeyahay midna waxaan leeyahay dadka baahiyaha gaar qaba midna waxaan leeyahay bulshooyinka Soomaaliyeed waxaan horumarinayaa dadka baahiyaha gaar qaba waxaan leeyahay isku tashta idinka wax qabsada waxaan kaloo saddexaad ku daraa midna waalidiinta waalidiinta dadka baahiyaha gaar qaba dhalay khayr Allah siiyo waalid qiimo badan waaye wayna jeceliin waa ognahay laakiin haddana jecelkoodii wuxuu nagu siiraday inuu xirxiraan oo kan meelo iga dhaca kasaan iga naqana maxmed baraay inay dhahan ilmihiina meel la gaarisiin ilaaha og waa ka dhiman kartaan ayoon wax baranin marka gacan siiya iskuulada meel walba laga furay geeya waxa barta haday arag la yihiin haday lugu la yihiin haday gacmo la yihiin haday dhig la yihiin waxa u sii dara dadka indhaha la iyo dadka dhigaha la yaa ayagu badanaa maaragtay si gaar ah waxa loo sii dhahaa ku maaragtay dhigaha la u sii weyno ayagu waa xoogoodu ku xamaal karaa laakiin arag la waxa la yiraahdaa may marka waxa la baro oo macna waxbarasho la geeyo waalidka aan ku hormarna bulshada weyntan waxaan leeyahay walaalihiin baahiyaha gaar qaba waa idinkoo kale beriya baahi gaar qabi kartaa idinkoo ilmaha shala markaan hawshan soo bilaabaynay kuwa badan arag lahaaya jiro oo had arag beelo ku soo biira dadkii marka ninba maalin inuu soo biiro laga yaabaa ama qaarkood ay ku soo biiraane intaad aragga leedahay ama lugahaaga ay leedahay naafa ka noqonin walaalaha ku caawi aqligaaga aqoontaada iyo maaragtay xoogaagaba ku caawiyo oo waxbar ma aan wax si gacanta geli kama wade si kasta ku caawi karta adigu ku caawi afkaaga ku caawi maaragtay indhahaaga ku caawi dhagaaga ku caawi qalbigaaga ku caawi hadalkaaga carabkaaga xataa ku caawi oo dhiirigeli markuu jidka socdo waa maasada jidka kugu toosaya si fiican dhe dhiirigeli markuu arag laaya kuwa waxay ku dhahay adoo fiican jidka kugu toosaya war dhagaxa kugu toosa godaa ku dhexrabta ay ku leeyihiin waqsinii jibiyayaanba marka kuwaasan saasaan leeyahay kuwa baahiyaa gaar qaba waxaan leeyahay
ceelna idinma qodna cidna idinma maqnee wax barta oo idinka isku tashta insha allah aad u mahadsantahay Ustaad Cabdiqaadir kulankaadii iyo waqtiga aadna siisay oo qiimaha badan kaaga mahad celinaynaa aadaan u mahadsantahay marka adna sidoo kale Axmed